waqooyiga Afrika gaar ahaan libaaxyada Atlas ee dunida wacdaraha ka dhigay waa dalka Morocco. Maalmahan dambe waxaa soo badanayay ragga Soomaaliyeed oo guur u doonanaya dalka Morocco, iyadoo ayna taas sabab u tahay guurka dalkaas oo la raqiisiyay kuna baxaysa lacag aad u yar. Haddaba barnaamijkeena Maskax Godol waxaan ku soo qaadan doonaa macluumaad ku saabsan dalka Morocco. Haddaba daawasho wacan. Morocco ama Maghrib waa dal dhaca Afrika gaar ahaan dhanka waqooyi, waxaana galbeed ka saaran badda Atlantic, halka badda Mediterranean-ka ee waqooyi bari kaga beegan tahay. Dalkan waa mid qaaradda Yurub aad ugu dhow, marin biyoodka Morocco iyo Yurub u dhexeeyana waa 13 mitir oo kaliya. Waxaana xusud mudan in dhulka Morocco ay dhacaan laba magaalo oo hoos tagto dalka Spain, kuwaasoo la yiraahdo Ceuta iyo Melilla. Balse Morocco waxay aaminsan tahay in labada magaalo ay iyagu leeyihiin. Sidoo kale Morocco waxay xuduud la leeyihiin Algeria iyo Mauritania, laakiin waxaa xusud mudan in dhanka koonfureed ee dalkan la yiraahdo Western Sahara waana gobol doonaya inuu ka go'o dalka Morocco, waxaana xiriir diblomaasiyadeed la leh dalal badan. Dhanka waqooyi ee dalka Morocco waxa uu caan ku yahay buuraha xariirsan ee Rif. Waxaa kaloo jira buuro lagu magacaabo Atlas, kuwaasoo kala qaybiya dhulka galbeed ee xeebta saaran iyo dhulka saxaraha ah ee bariga xiga. Buurta ugu dheer ee dalkan waxaa lagu magacaabaa Toubkal, sidoo kale waa buurta ugu dheer waqooyiga Afrika. Harada ugu weyn ee dalkan waa Bin Oudan, waana halka uu ku soo burqado wabiga ugu weyn ee dalkan oo lagu magacaabo Dara, kaas oo ku dhamaado badweynta Atlantic. 17% dhulka dalka Morocco waa dhul ku wanaagsan beeraha, halka 12% uu yahay dhul keen leh. Waxaa inta badan dhulka beeraha ku fiican laga helaa dhanka buuraha xiga ee xeebta Atlantic ee waqooyiga dalkan. Dhanka kale, xayawaanaadka laga helo dalkan waxaa ka mid ah dawacada la yiraahdo Fennec, oo ah dawacada ugu yar xajmiga. Xayawaanada sida gaarka ah loogu yaqaan dalkan waa libaaxa, gaar ahaan libaaxa Barbary. Libaaxan mar ayuu ku noolaa dhulkan, gaar ahaan wuxuu ku badnaa dhulka buuraleyda ee Atlas, balse hadda lagama helo, waa uu dabar go'ay. Waqtigii ugu dambeysay ee dhulka Morocco lagu arkane wuxuu ahaa 1922. Libaaxan waa astaanta qaranka Morocco, sida aad la socotaanba waa xulka dunida ka yaabiyay, isla markaana noqday dalkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo gaara semifinalka koobka adduunka. Waxaan lagu naanaysaa libaaxyada Atlas, waana libaaxyada Barbary ee ku noolaa buuraha Atlas. Taariikhda waxaa ku daabacan in dhulka Morocco ay xilliyo kala duwan ka soo taliyeen dhowr boqortooyo oo saameyn lahaa, isla markaana aas-aaseen magaalooyin maanta taariikhi ah. Faransa iyo Spain ayaa 1912 dhulka Morocco ka aas-aasay maxmiyad ayagoo hoos imaada. 1956 Morocco xorriyadeedii ayay ka qaadatay Faransa, kadibna 1958 waxay la soo laabatay dhulkii Spain hoos tagayay. 1999 waxaa taajka boqornimo la wareegay Maxamedkii lixaad, kadib markii uu aabihiisii geeriyooday. Waa boqorka Morocco, waxaana dhaxal sugihiisa ah wiilkiisa Mowlaaya Xasan oo 19 jir ah. Qoyska xukuma dalkan waa qoyska Calaawi. Boqortooyada Morocco waa midda labaad ee ugu qadiimsan kuwa maanta jira, waxaana ka qadiimsan oo kaliya boqortooyada Japan. Calanka dalkan midab ahaan wuxuu iskugu jiraa guduud iyo xidig cagaaran oo dhexda kaga taala. Midabka guduudan wuxuu u taagan yahay halganka loo galay gobonimada ee uu dhiigga ku daatay, halka xidigta cagaaranna ay u taagan tahay shanta tiir ee Islaamka. Dadka ku nool dalkan 100% waa Islaam Maalikiye ah, isla markaana Sunni ah. Tirada dadka ku nool dalkan waxay gaaraysaa 38 milyan. Kala duwanaanta dadweyne ee dalkan ka jirta waa mid aan qiyaas sax ah loo hayn, ilaha ugu muhiimsanna way ku kala aragti duwan yihiin. Laakiin sida guud 40% ilaa 80% oo dadka dalkani ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin Berber ama Amaziigh, waxaana iskugu jiraan kuwa Berber Carab ah iyo kuwa aaminsan inay 100% inay Berber yihiin. Sidoo kale Morocco waxaa ku nool dadka la yiraahdo Beedan, waxaana magacan loo yaqaanaa dadka midabka furan isla markaana ku nool mantiqada Maghrib. Dadka Berberka ama Amaziigh waa dad asal ahaan xoolo dhaqato ah oo laga helo dhulka waqooyiga Afrika. Waa dad leh dhaqan iyo luqad u gooni ah, wayna ka duwan yihiin Carabta. Luqadda rasmiga ah ee dalkan lagu hadlo waa luqadda Berberka, waxaana wehelisaa luqadda Carabiga iyo Faransiiska. Aqoonta dadweynaha dalkan sanadihii la soo dhaafay kobac ayay sameysay, ilaa 77% dadka dalkan waa kuwa wax qori kara waxna akhrin kara. Lacagta dalkan
waxaa lagu magacaabaa Moroccan dirham. Cuntooyinka laga jecel yahay dalka Morocco waxaa ka mid ah tagine, mashwi, harira iyo cuntada ugu caansan ahna midda qaran ee couscous. Arrinta kale ee mudnaanta leh waa in ay dadka dalkan aad u qiimeeyaan shaaha mint oo goob kasta dalkan laga cabo. Morocco waxaa la isku guursadaa qaab waafaqsan diinta Islaamka, gaar ahaan madhabka Maalikiyada ee dalkaasi laga haysto, iyadoona dariiq sharci ah loo maro labada qof ee nolosha ku midoobayaan. balse waxaa jira habab guur ay ka mid yihiin guurka loo yaqaan al-kawaafir, kaasoo ah hab la mid ah kii ay Soomaalida ku dhaqmi jirtay ee doon ku xirashada, iyadoo ay waalidka gabadha la siinayo yarad loo sii qadimayo, halka qofka laga xoolo qaatana loo ballan qaadaa in uu gabartu uu yarada ka bixiyay heli doono markii ay qaan gaarto. sidoo kale waxaa jira guur loo yaqaano guurka isku dhafka, kaasoo isku guursadaan laba qof oo kala jinsiyad ah, sida inanta dalkaas u dhalata iyo wiil dal kale ka yimid, waxaana guurkaasi u yaalo shuruudo aad u badan oo la xiriirta qofka ajnabiga ah ee guurdoonka ah. shuruudaha laga rabo qofka ajnabiga ah ee guurdoonka ah ee guursanaya gabar Moroccan ah waxaa ka mid ah in uu keeno warqaddii furiinka haddii uu guur hore soo maray, in uu keeno warqad dambi la'aanta, in uu keeno warqadda caddeynaysa xaaladiisa caafimaad, in uu keeno baasaboorkiisa iyo 4 sawir oo teestara ah, in uu yahay qof muslim ah isla markaasna caddeyn loo hayo inuu islaam yahay, in uu dhaqaale leeyahay isla markaasna la yaqaano ilaahay ee dhaqaalaha ka soo galaan, in uu soo maro safaaradda ama qunsuliyadda matasha waddanka uu dhalashada ka haysto. bulshada Soomaalida ayaa ka mid ah ajaanibta sanadihii dambe ee sida weyn dalkaasi xiriir kala sameynaysay, gaar ahaan qurbo joogta kuwaas oo markii hore dalxiis ahaan u tagi jiray dalkaas balse hadda guurka u doonta dalka Morocco. magaalooyinka weyn oo dalkan ku faano waxaa ka mid ah Casablanca, Rabat, Fez iyo Marrakesh. magaalada ugu weyn ee dalka Morocco waa magaalada Casablanca, waana xarunta dhaqaalaha dalka, waxaana laga helaa gegida diyaaradaha iyo dekedda ugu weyn ee dalka. sidoo kale magaaladan waxay leedahay dhismayaal ka turjumaysa ilbaxnimada Islaamka, waxaana ku yaala masjidka labaad ee Afrika ugu weyn ee Al Hassan Al Thani. masjidka kaliya ee ka weynna waa masjidka Jaamicul Jazaa'ir ee ku yaala caasimadda Algeria. caasimadda dalka Morocco waa magaalada Rabat oo aan wax badan ka fogeyn magaalada ugu weyn ee dalka ee Casablanca. caasimadda dalkan waa mid leh dhismayaal casri ah, inkastoo laga helo dhismayaal qadiimi ah oo la dhisay xilligii gumeystihii Faransiiska. magaalada Marrakesh oo la aaminsan yahay inay tahay halkii uu ka yimid magaca Morocco waa magaalo dalxiis, waana magaalada loogu booqasho badan yahay dalka. sidoo kale waa mid ka mid ah 5 magaalo ee Afrika ee dalxiisayaasha ugu badan tagaan. Marrakesh waa caasimadda dhaqanka ee Afrika, waxaana lagu naanaysaa magaalada gaduudan. haddii Marrakesh lagu naanayso magaalada gaduudan, sidoo kale waxaa jirta magaalada Chefchaouen oo iyadana lagu naanayso magaalada buluugga ah, waana mid caan ku ah guryo buluug iyo caddaan iskugu jira oo laga daawan karo buuraha Atlas. magaalada Fez oo mar ahayd caasimadda dalka waa magaalo leh qaab aad qadiimi u ah iyo wadooyin taariikhi ah oo u laabanaya casrigii dhexe. si la mid ah waxay kaloo caan ku tahay magaaladan warshadaha hargaha. sidoo kale waxaa ku taala magaaladan jaamacadda ugu qadiimsan dunida, waana jaamacadda Al-Qarawiyyin oo la aasaasay sanadii 859 ee miilaadiga, waxaana aasaastay haweeney muslimad ah oo la oran jiray Faaduma Al-Fihri. waxaa kaloo xusud mudan magaalada Ouarzazate ee dalka Morocco. waa magaalo lagu duubay aflaan badan oo caalami ah sida Lawrence of Arabia, The Jewel of Nile, Gladiator, Kingdom of Heaven iyo qaybo ka mid ah taxanaha filimkii Game of Thrones. Morocco waa dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika marka la eego GDP-ga, wuxuuna dhaqaalaha dalkani si weyn ugu tiirsan yahay dhanka wax soo saarka beeraha, macdan qodidda, warshadaha dharka iyo dalxiisayaasha. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Afrika ee si weyn ugu faa'iideystay kheyraadka badda, wuxuuna dibadda u dhoofiyaa xaddi badan oo kalluun ah, waana dalka xaddiga ugu badan dibadda u dhoofiya marka la eego kalluunka yar ee sardine. sidoo kale dalkan waa midka kaliya ee dhoofiya isla markaana sida weyn loogu yaqaano saliidda argan oil. saliidda laga soo saaro miraha geedka argan oo inta badan ka baxa koonfurta galbeed ee dalkan. dalalka xiriirka ganacsi uu la leeyahay waxaa ugu horeeyaan Faransa iyo Spain, waana labada dal ee ugu badan ee ka imaadaan dalxiisayaasha. marka la eego dalalka Afrika, dalka South Africa ayaa haysta
goobaha ugu badan ee ku jira liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. Morocco waa dalka labaad waxaana laga helaa ilaa 9 goobood oo liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO ku jira.